bisha Ramadaan waa bil bilaha kale oo dhan uga duwan isbeddelka ay la timaado taas oo ay ugu weyn tahay ka soomida cunnada iyo cabitaanka iyo quraan akhriska iyo badinta acmaasha wanaagsan oo dhan dad badan waxa ay doorbidaan inay in yar ka shaqeeyaan in badanna ka nastaan si ay uga gaashaantaan oonka iyo haraadka maalinkii oo dhan waayo uma tixgeliyaan camal weyn howlaha ay qabanayaan umana arkaan mid loo xisaabinayo ajir inay ku sugnaadaan hawshooda maalinlaha oo ay qoys iyo qaranba u hayaan waxa kaliya oo ay ka fikiraan ayaa ah inay salaadaha dheeriga ah sida taraawiixda iyo dabcan namaba dhacdaba inta badanse inay ku ictikaafaan masaajidda ama saacado xiriira ku dhex wardiyaan laakiin xaqiiqdu sidaas ma ahan bisha Ramadaan looma soo dejin inay qofka muslimka ah ka joojiso wax walba oo noloshiisa anfac u leh isagoo xujo u arkaya inay ku adag tahay soonka balse taasi beddelkeeda waxa ay u soo degtay inay caafimaad jir ahaaneed iyo hufnaan ruuxaaniyadeed oo ay siiso qofka muslimka ah diinta oo asalba diidan caajisnimada iyo meel fadhiga in bishan laga dhigto ay noqoto cudurdaar qofka ka qaada rabitaanka iyo jacaylka shaqada waagaf kamid noqoshada bulshada muslimka ah ee howlahooda adduun ka dhinac wata gudashada waajibaadka la saaray waa lama huraan waxaase sii amaanan kuwa shaqada iyo ugu yaraan cibaadada sida allabariga isku wada oo fursadii u timaadaba uu kaga faa'iideysto istighfaar iyo quraan akhris in masaajidda la camiraa halka ay aad lama huraan u tahay goor walba haddana waxaa ka sii lama huraansan inaan la moogaan dhacsiga nolol maalmeedka iyo dalbitaanka deeqaha ilaahay si aad kaga kaaftoonto gacan kale bisha Ramadaan ma ahan inay qofka ka qaado qiyaarka sida inuu shaqadiisa suuqa ka gaabiyo ama uu salaadaha gee waayo jameecada masjidka ama inay ka fogeyso hiwaayadihiisa sida kubaddii uu galab walba dheeli jiray waa inuu shaqadii uu bulshada u hayay sooqaadka ka hor si kasii firfircoon kana dulqaad iyo deeqsinimo badan ugu soo dhalaalaa si aanay kaalintiisu u lumin waxaa kaloo lama filaan ah in qofka sidii uu bulshada ula macaamili jiray ka hor oo uu si kasii qurux iyo soo dhaweyn badan ula dhaqmo bulshada isaga oo maanka ku haynaya in daqiiqad walba oo maalinkaasi ka mid ah ay macquul tahay in hal ficil oo uu sameeyo loogu dambi dhaafi karo waxaa aad loo bogaadiyaa kuwa aan xisaabta ku darsan oonka iyo gaajada oo ku mintida inaysan firaaq u abuurin jadwalka nolosha waayo waxa ay og yihiin inay jir ahaan isbedeli karaan sida inuu culays dheeriya ku yimaado jirkooda haddii ay ku qancaan inay kala dhantaalaan howlihii ay horey mar qura u wada qaban jireen bahda caafimaadka ayaa ku taliya in qofka aanu bixin daaqad ka badan intuu horey u qaban jiray soonka ka hor haddana aanu kala dhantaalin sababtoo ah ayay yiraahdeen jirku macquul ma ahan inuu la gegsan waayo maalmaha kooban saacadaha cuno la'aanta marba haddii uu ka nasanayo la falgalka cunooyinkii lagu shubi jiray caloosha talada ugu habboon in qofka uu ku dhaqaaqo si aanay daqiiqad walba uga khasaarin istighfaar la'aan waa inuu soo iibsadaa tusbax oo mar walba oo si ku meel gaara uu kaga nasanayo shaqada uu awoodi karo inuu gacanta ku qabsado waxaa kale oo xusuusin mudan in saacadaha uu qofku saaran yahay gaadiidka dadweynaha ama uu xaafadda dhex marayo inuu haysto waqti ku filan oo uu tasbiixda iyo taxmiidda afkiisa bari karo si saacadahaasi tirada badan uu in yar oo xasanaad uu ugu darsado muslimiinta hore waxa ay bishan u arki jireen bishii cibaadada iyo jihaadka waxaana xusid mudan in futuuxaad badan ay sameeyeen iyaga oo sooman haddaba waa adiga iyo khiyaarka inaad soonqaadka ka nasato shaqooyinka ama iska yarayso iyo inaad wax cusub oo ummadda iyo deegaankaba anfacaya af iyo adin ku soo biiriso si ajirkaagu u labalaabmo